بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. runtii waa saaka waxaan jecelahay inaan halkan ka ilaamiyo maadaama muddo dheer la sugayay waqtiga ayaa muhiim ah inaan sheegno imtixaankii aan soo deynino maadaama dadkii ardaydii iyo annaguba aan iska foolanayno oo lagu taagay waxaas waxaan jecelahay inaan runtii maanta halkan aanu ka cadeyno ama aanu sheegno waqtiga imtixaankii qaranku soo baxayo سنة دكسيت ك 2017-2018 وحنا هذا هم حنا غيرتي رئيس حافظة يتبي ساكا إلى هاي سكاي وفتشي وحنا شغال غيرتي ولي بقى هوستنا لوجو قرط تي في كقرن هي عدة أولي كتاب هوستنا لوجو قرط إعلام كسوة إعلام مهمة ويطب مدبرنا وسومال هذا سويسة هدول إلى هاي مو waxaan jecelahay 16 bisha oo ku beegan maalinta sabtida fooda inagu soo hayso in imtixaankii qaranka Soomaaliland aanu ku dhawaaqno kii dhaxaya kii saraba waxa kale oo inta uga faa'iideysanaya waxa weeye waxana aan ku beegmin runtii oo suugaynay الحاج وزير عبد الله oo imanaya runtii maalinta Jimcaha ayaan jecelahay inuu sabtida laga qayb galo oo ku dhawaaqno imtixaankii qaranka waxaan runtii soo jeedin doonaa oo warbixino fara badan sanadkan uu ka duwanaa imtixaanaadku sidii hore waxa kale oo iskuulada private-ka oo aad runtii hamuun ugu qabay ardaydii ay register gareeyeen form 1-da ahaa iyagana waxaan u amraynaa fasaxaya xafiiska imtixaanaadku iskuul waliba ardaydii oo register gareeyay ahaa form 1-da laga bilaabo sabtida 16-ka way ku soo xaadiri karaan iskuuladoodii way ugu yeeranayaan wayna u bilaabi karaan sabtida laga bilaabo natiijadiina way u yeerinayaan duruustiina way u bilaabi karaan sidaa darteed ciddii arrintaasina culays badani ku hayay waa inagii muddo badan isla jeedahaynay hadduu ilaahay idmo oo alla ina gaarsiiyo sabtida oo bishu 16 tahay waan iclaaminaynaa imtixaanaadkii qaranka dhexe iyo saraba waliba iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka ah waxaan u sheegaynaa in ardaydii form 1-da diiwaan gashadeen laga bilaabo sabtida 16 aan wax dambi jirin hadii ardaydii iskuulka ku soo xaadiriyaan oo ay u bilaabaan duruustii natiijadiina u yeeriyaan waxaan u rajaynayaa runtii Soomaaliland ugu bushaareynaya calooladeegu ilaahay wehelkii hadda sanadkan laga bilaabo waxaynu ku mitidaynaa tayeynta waxbarashada arday waliba ardayda soo socota waxa ku dadaalaya inay aad uga taxadiraan wixii sanadkan dhacay oo ahaa moobilada iyagu inay ku soo noqon sanadka waxa weeye moobilo fara badan kiisas waxa dhan waa soo bandhigi doona wixii moobil imtixaanka lagaga baabiyay oo inta badanna xafiiska imtixaanku naxariista kaba tago ardayga moobilka lagu qabto lagama baabinin imtixaanka oo dhan waxa laga baabinin maadada oo moobilka galay waan sheegi doonaa waxaan u rajaynayaa ardayda si hordhici maayo bishu hortiina imanaysaa iyo waalidka xaaladuna way fiican tahay wax balaayay ma jirto guul baan idin wada rajaynaynaa dhammaan ardayda oo dhan inay diyaar garoobaan runtii tacliintoodii ka sii sareysay dugsiga sare kuwa dambe soo galiyeen waxaan u rajaynaynaa in waa la isku dacareeyay wixii kale eegashada loo oran jiray inay dadaalkooga imika ay bilaabeen waa kuwa foorada imika ku jira in moobil laga caroodo oo laga xanaaqaan idinka baryaynaa moobilku ha noqdo danka hadalka asitoo kale moobiladeenu ha noqdaan oo nuusa saacaha iyo waalidka iyo saaxiibka kula hadallo laakiin smartphone-kii iyo WhatsApp-kii iyo waxaan kaloo rajaynaynaa macallimiintii WhatsApp-ka ku lug lahayd waanu iswada helay wax kala dhuuma kara ma jiro IT-da waanu macallin walba waanu saragnay iyagana waxaan rajaynaynaa macallimiintii inay iyagu dadweynaha u cadeeyaan inay ka tanaasuleen oo shir jaraa'id qabtaan oo nu kala qayb galno iyagana waxaan rajaynaynaa inay dib dambe arday dambe oo WhatsApp ku caawinayaan aanay jirin runtii waxay u badnaayeen macallimiintii private-ka ay xarfaan tahay waana wada qirteen hawlahoogii iyo dunuubtoodii waxaanay cadeeyeen oo nu ka codsanaynaa oo ka sugaynaa inay dadweynahana kala hadlaan TV oo sheegaan inaanu ardayna dib isku haleyn doonin ay kalaaska ardayga wax ku bari doonaan haduu ilaahay idmo sababkeed waa guul soo hoytay Soomaaliland waalidiinta iyo ardaydaba ardaygu ama ha gudbo laakiin waxa muhiim ah
inaynu noqono dhaqankeennii hore ku noqono كل وحيد ترتارنا كلانا وحوي وسير كيا جاسمة جودي وسير دولي وسير كحيل كمان امتحان كلا سيد دينيو أيه رمتي أي أو نكو عزوم دونا أيه كهاد دونا تن ما أنتوا واتو أنا جنوب جارو حفيز امتحان هان وبندت كوا عدين إن أيه وسارد عيد والبا إنه نجد دياري هاي امتحانك ونور وركي كسرنا أرضي دي إيه واردينتي امتحانك ما حكون دعي امتحانك ما هيراي امتحانك واد ديار شنتي والله جاكوري وهجاك سيهاي وحوي أرضي runtii ama ka xanuunsatay ama imtixaankana sida la yeelay iyagana waxaan ku dhawaaqi doonaa maalinta imtixaankaanu sii deyno ayaanu sheegi doonaa ardayda imtixaanka ama ka baaqatay dib xanuun uga baaqday ama xari kaga baaqday iyagana maalintaasaan insha Allah ka hadli doonaa imika waxaan u bishaareynaa ardaydii u diyaar garoobay foomonnada iyo kuwa jaamacadaha u diyaar garoobay waxa kaloo bishardi ah iskuuladii aan soo gudbin aan soo dalban shahaadadaha ee aan lacagtii shahaadaha soo shubin si degdeg ah soo shubaan hadii kale shahaadad heli maayaan iskuulku ka horeeyay uu lacagta ka soo shubay shahaadaha la siinaya arday aan shahaadad haysana lama siinayo ma fariisanayo fasal jaamacadaha waxaan u sheegayaa haduu ilaahay idmo jaamacad aanu siinayna ma jirto documentiska ama daatada imtixaanka ilaa ay shahaadaha soo dalbadaan وأنا جامعة شهادة صوت البلدان وأي واحد عضي أرضي مركز جامعة داتوي كيسيني أرضي جامعة داتوي بيجي إيجيسا شهادة دي بعد ما قادنا سو ودوبي شهادة سنة كيورة سنة كان واحد من كوب شهرين شهادة وكان هو شهادة عصب أو هالك العقد اللي قصة مية إنجليز كانوا خاصة سمينا هم تي أو نقرأت تقال منه فور شركة واحد كل هالك فرينو مرينا إياها إن أول سومالي لاند ريسكو غير إلى هاين ما يسمينش الدوكيومنتس كسومالي لاند سيب الشهادة لكن إنك قولوا يسكن ناقصات أو أن عقل يقول كوف الليل باصوب حي أو شهادة سومالي لاند فور شركة ريا كوا واحد مش هيجي إن الدنبيريال قريهين إن الدنبيريال قريهين بانهم تروش هيجي وحنا كو أتكينا يا إن قف طبق أو نقول القادرين ما تشتو قاربان فياتكو كتشوفنا قف طبق أو نقول القادرين وشهادة سومالي لاند لقوا عفني أنا ما تشتو وحكو سوق بجبينيا أرضينا سنة دوسية كصوص عطر جول بانفرشينيا كون صيب حين جول بانفرشينيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.